بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada maanta waxaan ka hadlaynaa cashar aad u muhiima gaar ahaan khuseeya ardada gaar ahaan marka ay imtixaanka galayaan waxaan ka hadlaynaa ardayga iyo imtixaanka inta aanan ardayga iyo imtixaanka ka hadlin waxaa muhiima inaan ka hadalno imtixaanka ka hor waxa laga rabo inta imtixaanku uu socdo waxa laga rabo iyo imtixaanka kadib maxaa laga rabaa aan u kala qaybino noloshana waa aragtiin shay kasta wuxuu leeyahay qayb hore qayb dhexe iyo qayb dambe qofka beeralayda ah hadaa aragtaan waxa u baahan yahay marka hore inuu abuurkiisa soo diyaarsado abuurkiisa soo nadiifiyo abuurkiisa qashinka kale ka saaro masaftiisa inta qaato uu meehaaho waa u baahan yahay kadibna abuurkiisa uu dhigo kadibna abuurkiisa wixii soo baxay uu falo ugu dambeynna inuu goosto intaas waa inta ardayga laga rabo tusaale kale waxa aan u malaynayaa oo aad u fahmi kartaa dhalinyaradu ay aad u fahmi kartaan cayaaraha qofka cayaartoyda ah ilamaha inuu isla markiiba cayaar dalaq leeyahay oo uu sidaas ku gali kara cayaarta isla markiiba uu xurtoonaya waa daalayaa meel buu iska fariisanaya waxba ma qabanayo waa in ka hor la tababar la soo siiyaa adag tababarkaas markuu qaato haddii orod yahana orodka tababarkeeda qaato hadday cayaar tahayna cayaartii tababarkeeda qaato kadibna uu cayaaro kadibna waxaa ka soo bixi doona natiijadii cayaartii markaan aan gudubnay oo aan badinay maxaan u badinay iyo hadiina laga badiyey maxaa sababan laga badiyey imtixaankuna waa intaasoo kale soo ma fiicna marka qofku maadaama cayaarihii xoogga la saaray oo qofkii waa iyadoo cayaar ah xoogga la saaray waxbarashadeennii waa in lamida xoogga la saaraa waxaan ka bilaabaynaa qaybta koowaad oo ah imtixaanka intaan la gelin ka hor dabcan waxaa isdiyaarintaada iyo tababarka aad gelayso waxa weeye inaad casharadaada diyaarsato qodobka koowaad ugu horeeya geemka ka hor waxa weeye diyaarso oo nidaamso waqtigaaga u talagal shaqadan adaa lagaa rabaa qof kale kuma geli doono imtixaan sida aan qof kale kugu qadeyn doonin hebelow ii qadee kadib qadeedii baan dareemayaa dharagteedii suuragal maaha hebelow imtixaan isii hebelow su-aal hebel ii sheeg waa kugu ceeb bay ila tahay marka waxaa muhiima marka horeba kow iyo kow inaan sameyno beeralaydu waxay sameeyaan qaarkood inta aan roobkuba imaan oo jiilaalka lagu jiro ayay abuurka sii beeraan duugaan markaas waxaa lahaa jiilaal duug marka uu roobku ku dhufto dhibicuhu marku dhacaanba kuwa kore intay kasoo horbaxayaan markiiba marka jiilaal duug waxbarashana laga rabaa inaan marka hore waxaynu sii diyaarsano oo maalinta imtixaan la gaaraba hore waxaynu ay kusoo baxaan qodobkaas aad uu muhiim u yahay qofku inuu marka hore wax diyaarsado qodobka labaad waxa weeye ee laga rabaa ha noqonin qof waqtigu intuu ka dhammaado hadhow degdega abababa leh may taasoo waxyaalaha qofka wax ka dila weeye qof kasta oo shaqo intuu dib dhigto shaqadii markay aakhirka joogto gabgab yiraahda wax badan baa ka halaaba kan beeralayda ah ee aan beertiisa marka hore falan markii dambe dad badan isugu wax layla folo yiraahda ama yiraahda dad u keena inay u falaan maxay u sameeyaan bay kula tahay waa loo bobsiinaya ciidda loogu soo rogayaa cawska waxaa loo sameynaya waxa ay yiraahdaan jiilaal waxa ay yiraahdaan jaanduug waa loo jaanduugayaa waxbarashadaada ha jaanduugin oo laba beri kadib markii oo beertii waxaa arkaysaa cawskii oo ciiddii ka soo baxay haddii aad degdegto tiraahdo waxba kuma tarayso waa aragteen ardada subaca isu diyaarinaya oo aan qur-aanka marka hore aada u diyaarsan ee subaca keliya isu diyaariya ee isku soo aadaadiya aayadaha markii ay ka baxaan kadib wax ma yaqaanaan qodobka labaad marka waxa weeye marka hore waxaada samayso maalan maalin kasta meeqa saaca ugu talagala maadadii jadwala kuu degsan jadwalkaas maadooyinka aada u samaysatay taas waxay keenaysaa in aad waxaaga meel dhigato waxaan u malaynaa waa ila fahamtay inuu qofku inta uusanba imtixaan gelin inuu u baahan yahay inuu soo diyaarsado markaas kadib ayuu wax ka tari karaa imtixaanka qodobka saddexaad soo kuma sheegaasna
casharkaaga waa kuu diyaarsan yahay, waxaagii meel baad dhigatay, raadi oo tijaabi imtixaano tijaabo ah. dadka ardayda shahaadada galayoo kale waxaa jira umayna imtixaano badan oo tijaabo ah oo yaala. isku day imtixaanadaas inaad ka shaqayso, laakiin samee sidii adoo imtixaan galayo kale. isku tijaabi maahane sidii adoo buug muraajaca samaynayo su-aalaha ma aha, sidii adoo imtixaan galaya isu tijaabi. waxaa ka soo baxa fiiri meelaha qaarkood waxaa ku arki doontaa xataa midka wadanka lagu qaado oo shahaadooyinka waxay intaradeeda yaalaan. ka fakar intaad hadhow ka fakeri lahayd, war imtixaana yaa haya, war imtixaankii ma baxay. dadka waxa wareeriyey waxaas wey, imtixaankii ma baxay, imtixaanka caawa ma la helay, waa waqti dhumis. waxaa ka roon marka hore isdiyaari tijaabi. waxaa arkaysaa habeenka imtixaanada la gelayo arday badan meelaha taagan jidadka oo la haye imtixaan ma la helay ma la hiya. waxaas waxba ku tari maysaan. qof diyaara waxaas baba galaba. inta aad meelaha ordayso oo wax raadinayso imtixaan soo baxay iyo qaar badan baa waxay keeneen imtixaano beena wax aan jirin. markaas imtixaankii waa la helay anaa haya, soto lacag lagaga qaatayba, qaara lacag looga qaatay. imtixaano tijaabaha kala badane tijaabi. aad iyo aad u muhiim u tahay inaad istijaabiso. haddaad imtixaan kala weyso adiga saaxiibada ah isla sameeya imtixaan. nin walba su-aalaha soo sameeyo, su-aalahaas ha la iska qaado. qofkasta su-aalaha uu soo sameeyo kan kale ha u dhiibo. adi su-aalo diyaari, saaxiibkaana su-aalaha soo diyaariyo, isweydaarsada. nin walba kan kalaha ka shaqeeyo, isu saxa idinka. waa tababar wey. waayo inta aan la tegin geedka weyn waxaa loo baahan geed yara in lasoo fariisto aa loo baahan. inta aan geedka weyn la tegin oo garta loo tegin, geedka yara in la tago oo lasoo garamaa loo baahan, gartaada ha qaadato. qodobka kale ee afaraad waxaa weeye marka aad rabto inaad wax akhriso, shaqo badan hal mar ha isku qaban. multitasking, shaqo badan. akhrisaan u joogaa, haye mobile waa xiran, facebook waa xiran, youtube waa xiran, email waa xiran, tiktok makuu jooga meeshaas. markaan waxaan rabaa hal waxbaro. dadka isku wada dhowr shaqo isku wada way ku adag tahay inay wax badan gaaraan. laakiin hal shaqo haddaan qabto, hadda sheegaanan ugu talagalay saacadda inaan akhriyo, wax badan baan gudbayaa. laakiin hal shayba rabaa hal saacadood dhowr shay inaad qabto waxba tari mayso. tusaale maku weydiiya adiga haddaan ku iraahdo bal hadda waad ila yaabi lahayd haddaan ku iraahdo tirooyinka mataqaan war maanaan tiro aqoon, bal hadda istijaabiya tirada iiwad waa boobsiisay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haye. alifbeetada ma taqaanaa? soomaaliga ha noqoto ba ta ja ha kha da ra sa a b c d e f g h i j k waa taqaanaa. boobsiina soo jeedid qof walba waa yaqaanaa. hadda waxaan sameynaynaa labadii shaqo hal mar isu keenaynaa. aan boobsiina markaa ayaa sideeda xataa aan boobsiin karo. aan isku darno 1 iyo a, 2 iyo b, 3 iyo c isku daray boobsi. 1 a, 2 b, 3 c, 4 waa daahaya. qaarkoodna waad qaldaysaa. maxaa laba shaqo hal mar isugu geenaysaa? hunguri wax ka weyn la geliyaa waa dilaaca. soomaalida tiraahdo hunguri wax ka weyn la geliyo waa dilaaca. ma tartiibsatid shaygaan meel dhig. haddaad rabto inaad quraan akhrisato quraanka u jeeso, haddaad rabto inaad maadada u jeeso meel ku soo xir. laakiin shaygaan fiiri kana fiiri wax u taraya ma jiro. waa dhari intaas qof isla karinayso dhari farabadshaa waa fud xarareeya. dharigaaga waxa tartiibtaada u samayso. waxaa looma baahna marka in hal waqti shaqooyin badan hal mar la qabto. shaygaan meeshaada ku soo xiro. waxaan u meenaa qodobkaas afaraadna waa ila fahamtayo dadka raba inay waxana akhriyaan waxna kale ku dardaraan. markaa rabto hadhow waxaaga dhagayso, waxaaga akhrisa kale, waxaaga kala qabso. qodobkaasna waa qodobka shanaad. ka warrama ardada isla akhrisashada. group ardayna waxay isla akhristaan way fiican tahay, laakiin goormay fiican tahay? anoon waxba soo akhrin, adoon waxba soo akhrin, isagoon waxba akhrin, afarteena isu nimid, kii kalena waxba soo akhrin, waa isu nimid. haye halkee ka bilownaa? dariiqo qaldan wey. dariiqadaas tootale waa qalad, idilkeedba waa qalad. maxaa saxa?
adeeg wax soo akhri, adna wax soo akhri, jabtar hebel jabtar wal aan soo wada akhrino, nin walbaana ha soo qorto wixiisa, ha isugu imaano su'aalaheeda iyo muraajacadeeda waa cadda. laakiin kuwa waxaan ka bilaabaynaa muraajaco may, waxyaalahaas waa soo tijaabinay wax badan. ardada waxaan dhihi jirna war saas maaha, qof walba wax soo akhri, adigoo wixii kugu adag la yimid soo xariiqda la imow, kadib hadhow aan isla muraajacayno. markaasay noqonaysaa anagoo isla muraajacaynay, markaasay muraajacadu noqonaysaa miro dhal, markaasay miro dhalaysaa. haddii kale muraajacadu waxay taraysa male. waxaan u malaynaa qodobkaasna waa fahamsan yahay. dadka midda kalena yaa wax la akhrinsanaysaa, nooca dadka aad la akhrisanaysa maya. nin aan waxbarasho rabin oo inuu kulugooyo raba, ama qof aan waxbarasho rabin oo kulugooyo raba oo meesha uu jooga raba ama iska caajisaya, haddii haddana la isu yimaado nidaam ha la qorto. wax ma baranayna ha mobilada dhan silent xagga dhiga, wax kale yaan geli intaanaan wadeena. sheeko banaan ka timid inaga joojiye. haddaad rabtaa markaa xoogaa joogtaan, bareegaan qaadanay, bareegaas qaata, wada sheekaysta, refreshment sameeya, caba biyabitaan caba, ya wax qabta. laakiin sheekaa la isku dhex wadaa, cashara la isku wadaa, weligaa meel gaar. saa u joogtaa leedaa maanta maxaan qabanay waxba, bal berri aan isu imaano, berrina waa sideedii, saa dambana waa sideedii, saa kulli maalin kastaba shalay darra kulli saan dhahnay iyo berri dambe. dabeecadaas waa la jari karaa. qofka aan gruubka la socon karin, adeer raalle aho gruubkan lama socon kartid, kooxdan lama socon kartid, akhris ku jirtee kooxdan waa koox isku ballansatay inay wax barato, ee inadaa ama nidaamka waxbarashada iyo wax wada qabsiga raac. dad aan nidaam degsanin yaysan waxba isla akhrisan. nidaam ka horeeya inta aynaan waxba, nidaamkaas inta aynaan marka horeba bilaabin nidaamkaa degista, waa gruubkaas wey, waa loo baahan yahay maan. waxaan kaloo u baahannahay qodobka shanaad, inta aad wax akhrisanayso haddii aad daasho waa jooji, iska naso, adoo daalan waxba ha akhrin, iska daalo. xataa salaadii baa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qofkiina hadduu daalo oo hurdoodo ha iska joojiyo. waxaa dhici karta inuu ducaysanayo oon u haysto oo u ishabaarayo, ilaa ilaahay ma daalo idii adinku daashaan, marka iska naso. salaadii baa la yidhi sidaa sunnadii leylkii la tukanayay way fara. taada marka adoo daalan ha soo gelin marka hore, adiga oo daalanna tartiib u dhaxaysii wax. markaa daranta inaad daasho oon wax warku kugu socon, iska jooji, u soo noqo refreshment. wax kale haddaad samayso, waagaan dhigan jirna jaamaca la foole waxbarashada, markaan caawa dhan wax fadhino, marka dambe la haye aan aadno meelihii bushashkii iyo meelaha shaaha lagu cabay iyo xoogaa yaraa lasoo jira, adoo waxaa imaanaya qof kii horeba ma ahidba, qof kaloo fresh ah imaanaya, kii horeba ahayn. waa bini aadamku waa sidaas. qofka xataa haddaa u baahato soo qubayso, soo naso, wax yar ibow, haddana meeshii ka qofka marka hore u soo diyaarsado waxaas. imtixaanka marka la gaaro, maalmaha imtixaanka gagagab waxma tarayso. haddii ay dhacday in aad maantay hore u soo akhrin oo maanta ay ku haysato, haddaba kala habayso lafteeda, maantaba habayso. imtixaanka caawa la leeyahay malwa habee, nidaam tartiib waqti u kala habee, waanad ku filaanaysaa. laakiin caawa dhan baa wax akhrisay, waa daalashay, beri subaxiina imtixaanka aad geli hurdaa kula tagtay, baal barqa ah, dhurwaagii bariijka habeen maalintii ku bariyey waagu oo bariijka ka duulay ha noqon. imtixaanka hadhow ardayga imaana soo hurdaysan, maxaa dhacay? imtixaankiiba waa laga baxay, horaa laga baxay. kuwa waxaa arkaysaa daalan oo imtixaanka yimid, oo xataa aan soo quraacan, oo iyagoo rafaadsan imtixaanka yimid, oo imtixaan ku dhex hurdoonaya, ama waxba isugu aado, ama wixii meesha ku qarnaaba arki waaye ee gacanta la qabtay, arki waaye. waxyaalo badanaan soo aragnay. marka waxaa kuu fiican adoo nasta inaad timaado. qodobadaas waxyaalaha aan aad u sheegana waxaa ka mid a inaan aad u fahamno qodobka 7 ku xidha waxaa weye waxyaalaha aad baranayso yaa nolosha ku xir, shayba shay ku xir, isku xafidiyo. marka hore inaan shay waxba inaan xafidan rabaa ama inaan fahmaan rabaa, waxyaalaha aad xusuusantahay adig ku xir. shay hebel shaygaas ku xiray,
casharka iska xafid maaha leene shay baa shay ku xasuusanaysaa shay hebel wallahi waxaan ku xasuustaa kaas xataa telefoonada nambaradooda oo aan ka hadlayno xataa waa la xasuusan karaa ardada qaar waxaan ku idhaahdaa bal telefoon nambarkaan fiiriya ma xafidaysaan 65 43 21 وسو عليا دها 65 43 21 هذا واحد كده waa ilooba muxuu ahaa 65 may saas ma rabno wuxuu ahaa 6 5 baa ku xigta 4 ku xigta 3 ku xigta 2 ku xigta 1 baa ku xigta ama si kala u dhahnaa wuxuu ahaa 1 2 3 4 5 6 fudud faham waxyaalaha qaarkood waxbay ku xiran yihiin haday taariikh tahay taariikh kala ku xiran haday tahay wax kale oo muhiima shay kale oo muhiima ku xir noloshaada haday tahay noloshaada wax ku saabsan noloshaada ku xir hadhow shaygaas waa xasuusanaysaa waana aad si aad xasuusato maskaxdu waxay leedahay waxyaalo lagu xasuusin karo ama mnemonics waxa la memorial aids qofka wax ku saacida dugsiga quraanka markii la dhiganayay suuratul rahmaan marka aan baranayno waxaan dhihi jirnay kharama yuwaku سيد لو فهم خارما خلق الإنسان رب المشرقين مرج البحرين يواكو يخرج وله الجوار كل من عليها فان هذا مركا برات waxaas oo iska tagay xasharada qaarkood waxba la isku xirtaa hadowna shaygaas baan ardada markii weeri tusaale u soo qabanaa ardayda dugsiga sare dhigta ee midabada barta qaybta midabada midab hebel midab kala qudar مثلا waxaa la yiri midab hebel ardayba waxaan ku iri anoo u dhigay midabada in isku daro maxaa yellow soo saaraya green maxaa soo saaray red soo yellow maaha ardaygan wax keen aan ku xusuustaan inuu yellow soo baxo oo jaallo soo baxo cagaar iyo soo guduud maaha green iyo yellow red ku dar waxa soo baxay yellow gabadha gacanta guriga reer Yusuf oo ma sha Allah waa la gartay guriga reer Yusuf qaar waxay dhaheen madiina oo degan ya waxa rabay inaan soo saaro midabka sign maxay green iyo blue oo la isku daray waa sign waxa lagu xasuustaa mid baa yiri Gabo Business Center oo Madiina ku yaala Gabo ba CD waa soo baxay qaar la yiri waxa isku dartaa redka R B iyo M red lagu daray بلوغ حصاب مجنته اسكو در ميدا wuxuu yiri beeni run ma gaarto oo isku xigta ben p r blue iyo red waxa magenta sidaas oo kale wax isugu xiro waxaas arday baa sheegtay anu ma sheegin ayagaan ka keenay inay maartay wax keen qaara u sameeyay gabayo iyo gaaraaro ardada qamida isku xiro shaqdi qofba waxbuu keenay uu keeni karo hadaa u baahantay marka midabada marka la sheegay todobada midab maxaa ku xusataan ay sheegay ardada foorada oo kala dhaa soo ma dhahdaan vibgyor ama roybiv ana waa isku violet indigo blue yellow or intii todobadii cashar kasto aad baranaysa saas wax hadaa rabto inaad shay barato taariikhda ama siirada ama xisaabta qolo walba waxay leedahay shay la isku xiri karo ma ila fahamtay بس كسو حسوسية قضبضي مركلة كسو حسوسية انت ان هول جلين ديارين بي اوباهانته على مين تدا عيارتا يبيرتي با اوباهاني سو دياري لابو waxaa u baahan tahay inaad samayso aya waxaa u baahannahay hadaan rabno inaan wax akhrino in aan wixii aan akhrineynay inaan u samaysano waqti iyo nidaam oo aan degdeg ku galin waxaa u baahannahay laastiga minaanan laga ka wada waxaan u baahannahay mararka qaarkood inaan imtixaano tijaabo ah aan sameeyna u baahannahay waxaan u baahannahay inaanan isku dardarin dhowr shaqo hal mar waxaan u baahannahay gruubka aan wax la akhrisanayna inaan fiirino nidaam iyo jadwal aan samaysano waxaan u baahannahay nasiino inaan samaysano waxaan u baahannahay iyo inaan waxbarashadeena ku xirno nolosha qodobadaas waxa weeye waa in yar aan soo gaabiyo waa laga ka badan baa jira laakiin waa qodobo tilmaamaya imtixaanka inta aan la gelin ka hor soo diyaar garoow kadib waxaan galaynaa marka imtixaanka la galo oo aan fadhino waa la ii dhiibay warqadii waxaan samaynayaa soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.